السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصومالي محمد دمانتي ويد سلامي يا الله يقالي جاي وميلا تشوفتان بقى الله يد السلامي يا ويوتيوب مخالد دمانتي ميلا تشوفتان بهمين يمالين بإلهي يد كدورة الله يد حفظه الله يد أمانيه إن قدرنا الله إنا أماني الله إنا حفظه ميلا تشوفنا إن شاء الله بإذن الله ولا ليال إلهي دنبقي دنبوارتكي بها دافو إلهي إذن كيسا مالنتا سبتدا وبشو كوية لباتن تاي بشي الكوية تمناد دمانتي وحان دليها ولا ليال الله إذا عفيو الله أنا إذا حفظو دمان تيمبا إلهي دنبقي دنبوارتكي بها دافو دمان تيمبا ولا ليال ميلا تشوكتان با انتي وقت والبا إذين تاي وحان دليها إلهي سبحانه وتعالى هيدين بركيو عمرقينا إيو وقتقينا با إلهي إذن كيسا ويوتيوب مخالد ويا إلهي نودن بدافع ولا ليال دمان تيمبا انتي دمتين الله ونحرسه انت نولنا الله حفظه الله عافيه إلهي نودن بدافع ولا ليال دمان تيمبا ما انتو حربائنا كالو موضوع وحوي الدون كان هداد شوتو حول بواد أرخيصان مالين والبنا هير بوتاغن يا الدون كان ينوشيدنو وحوي maalin ba heer buu taagan yahay adduunkana waxa weeye maalin baa ku soo maraysa maalin muhiim ah wadan ogeyn baa ku soo maraysa laakiin Soomaalidu waa dad aqli badan oo waxaan u maleynayaa maalintaas muhiimka oo soo maraysa inay og yihiin maalin ba gacan baa sarreysa bari gacantii sarreysay maanta waa hooseysayo bari tii hooseysay baa sarreysa إلهي سبحانه وتعالى مالن والبمالن وناكسنا إنه كقدر هنا إنه كحفظ الدون كان ولا ليال وحوي الدون كان هداد أوسي في رستي مالن بوقت بيمر الساعة وقت كستبها كل جارته صوبته توحوي ما أنت واعد ركتان شري الصوماليا بابا سنيد وقحيسي وميل والبا أي جارتي دبعت تدود جارتي مية مقالبة مية مقالبة وحي جارتي صوماليا وحا جارتي دبتيدي باي جاري عيالكودي ناغوهودي عرورتودي رقودي هذا دباتي دقال بيبا كجرون اياغا اسو جيده cid kale la dagaalameysa malahan sida hadda Ethiopia oo kale ayada sida hadda Ethiopia iyadii hoosteeda uga dhalatay shala haday nabdoonaayeen oo wadankeeda aan ku qaxnay oo dadkeena qurunkii Soomaaliya gaaray maanta ayaga qurunkoodi nagu bilowdo waana sidii la sheegay oo waa hooska labadiisa gelin adduunku waa hooska labadiisa gelin midna casarkeena aad xagga ka fariisanaysa duhurkeena aad xagga ka fariisanaysa maanta waa kaas waad aragtaan shalay dadkii nagu soo qaxay oo ayagu isku kaayo dhuftay maanta inagu iskuma baayna dhufan alxamdulillah wa shukr lillah inagu iskuma baayna dhufan laakiin shalay ayaga isku kaayo dhuftay oo kuweennay muxuu hayto dhibaato wadeenka ah hoosta gashaday oo waxa weeye muxuu hayto oo xareynayay laakiin maanta anagoon dhibaatadooda ka talinin oo masaa'ibtooda iyo mashaakilkooda ka talin waa kuwaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala dubihiisii baa ku dhacay oo waa kuwaas maanta Soomaaliya u soo qaxayo dawlado badan oo dhibaatadayada ka taliyana waa sugaynaa Soomaaliya dawlado badan oo dhibteena ka taliyay oo dhibaatadeena ku farxay oo naagaheena iyo caruurteena iyo dadkeena baabi'iyay waa sugaynaa guriyaheenan ku sugaynaa hadii alla yiraahdo sababtay waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidna ma ilowsana qof walba maalin baa dubihiis ku dhacaya waa kaasaan ku ir yaa mariyo weyna waa sugaynaa dubuhu markuu ku dhici doono sababtay waxa weeye dulmi wixii naga galay oo dhan anagu dad masaakiin aan nahay dad xoolo dhaqataa baan ahayn dad dhibaatada dadka jecel ma ahayn dhibaatadoodiiba intay guryahayaga soo galiyeen bay dubba nagu dhufteen laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayagana dubahoodii baa ku dhacaya laakiin maxay naga leeyno kaga baahan yahay Soomaaliya waxa leeyno kaga baahan yahay inaga maanta inta aqliga la waa garanaysa inta aqliga lahayna hadda Ilaahay ha u naxariisto inta aqliga lehna maanta waa garanaysa inta aqliga lahayna Allah u naxariisto sababtay waxa weeye dhibaatadina la ku dhigay iyo dhibaatadii nagu dhacday iyo caruuraheena iyo gabdhaheena lagu dhibaateeyay xuduudaha lagu dhibaateeyay oo dhibaatadan ogaa ay ka dhacday oo anigu aan u taagnaayo aan arkay baan ku gabdha feere lagu dhajiyay ilaahay waa kan igu ogyahay feera dusha laga saaray aan arkay
Soomaalidu maanta baraarugto maanta haddaysan baan ku ira aysan maanta aysan istaagin oo aysan dhibaato walba aysan albaabkeeda xirinin oo iyagu wali isku jeedaan oo dhibaatadii wali wadaaneen oo dhibaatadii ay wali sii dugsanayaan waxa weeye iyaga loo hara ilaa waxa la yiri nin ku siray baa la yiri hadduu mar labaad ku siraada alla sira maanta waxa weeye waad aragtaan way ka bilaabatay wadamadii dhibaatadayna ku sameeyay oo dhibaatadayna ku sameeyay waa bilaabatay أول بيوم كبلابته هاتنا إثيوبيا كبلابته إن شاء الله بإذن الله وحن سوينا كينيا يا مريوين ودم بسوينا لكن وحلا الرباط ده كان إنه فكروا أو كيف فكروا شلا دبعتة اللي وهي إنه بقول سمين ماينه دبعتة يجوا شلا إنه كل سمايين أنا بقول سمين ماينه وسود ويننا مثل بميل باندتنا وحي إنه كدك تانو إنه كدك جيم بينه كدك جينا إنه قلنا أبدين ماينه وأنا سيادين ماينه كي يرك فيل بانكانا كفيل بانكنا قنينا كي يرمجال كشقيستو ولا يدين أوجانا هي وأوجانينا كي محايتو إن دبعتين ماينا لكن واحد هنا محايتو قبصو دولة بان هاي محايتو إسسود ديوان قلب عند هنا إنتينا نهم بعند هنا وحكى لو قبضين ماينا ونا السيادين ماينا ونا ناقص ماينا لكن محل هنا كربا وطن كنا هنا هرتاي جاكسين وطن كنا هنا نسكت دوبنا هنا جسي يجوش على يسكت دوبنا هنا نسكت دوبنا نسكوا قبنا oo waxa weeye raggan dhalinyaradan isku wada haysata kursiga isku haysata war waxa weeye wadankeena nicmadii baa u soo baxaysa nicmadii shalay baan ku irinayna ka baabiyay dawladaha aynu tagno ina dhibaateeyo waa kuwan maanta ku soo qaxaya maanta waxa la idin karabaa Soomaaliya ina aqligiina ka hormarisaan intii hore ina ka fikirtaan muxuu ahaa dhibaatadii shalay caruurihiina iyo dadkiina lagu sameeyay waliina lagu wado ina ka fikirtaan dawlad walba oo dhibaato nagu sameysay ogaada inay imaanayso wadankeeni Ilaahay subhanahu wa ta'ala cidna ma dulmo dhibaatadii shalay layna ku sameeyo meel walba layna kaga sameeyay maanta inaga muxuu ahaa maanta madax u noqonayna maanta inaga waxa weey layna hoos imaanaya laakiin seeba layna hoos imaanaya waxayna inagu dadnimadayna soo saarno Soomaalinimadii layna ku yaqaanay iyo kaalmadii anagu waxaan wadankan waxaan iyadoo la yiraahdo Soomaalidu iyada na kaalmeyn jirto wax noo keeni jirtay meeshaan wax noogu keeni jirtay waxaan sugi jirnay safarada Soomaaliya markay ka yimaadaan wallahi la cadeenay wax kala dhigi jirin safarada Soomaaliya aan sugi jirnay oo qubiskan hadda ay saamooniga u bixiyeen waxa ay Soomaaliya nalo ka keeni jira burka iyo cunnada iyo hilibka iyo subaga waxa nalo ka keeni jiray baaliyo xoolaha waxa nalo ka keeni jiray Soomaaliya waa in magaceena iyo muuradeena soo noqotaa anagu dhibaatada ay u geysteen anagu u geysan mayno laakiin siday noo galeen baan u galeynaa uga badin mayno ugana yarayn mayno marka waxaan leeyahay Soomaaliya maantay ka gudma reer hebel ka gudba hadda reer hebel wali ku taagantiin oo wali reer hebel haysataan wacda leena meelna ina ka qayma galaynin ogaada meelna ina ka qayma galayna sidaas aad ahaanaysa wadankiina waxaan idin tusaa intii lagu soo qaxay in adinka la idinku maamulo haddiina sida hadda tiin iska bedelinin iyo qabiilka iyo kursi ku dagaalanka iyo anigoo reer hebel kursi ma helin iyo waa dhibaatada dawladaha baabiisa reer hebel bahdaa maqashay iyo kursi iyo niman kursi isku haysta baaldhawada waxaan la yaabayna Trump baan la yaabayna war Trump muxuu sidaa u yeelayaa baan lahayn waxay rabaan in hadaynu bad leenahay in iyagu badda ka shaqaystaan hadaynu leenahay beerana in iyagu ka shaqaystaan waa intu saaya Yamantu waaba sidaasba Yamantu waa sidaa iyo qoladan kale oo maryaweynta ay la joogno waa sidaa wadankay tagaan iyaga beeraha qabsada badana qabsada dadkeenuna waxay u noqonayaan hadhowto inay guriyaha uga shaqeeyaan marka Allahu akbar maqribkii baa la adimay walaalayaal marka waxa la rabaa inaynu dadnimadeena soo celino maanta xooleynu haysanaa oo bad waxaynu haysanaa hodanaynu haysanaa waxaan haysanaa muxuu hayto ma sha Allah tabarakallah beero hodanaynu haysanaa maanta cid aynu wax uga baahanahay malahan laakiin waxayna dilo ina baabiyay waa qabiil
qabiil bayna baabiyay anaa qolo hebelay anaa qolo hebelay ilaahay naga soo qabtay wixii qabiil sheegtay qabiil bayna baabiyay inagana qabiil dan inuu kugu yaala iyo wuxuu inuu kugu yaala ma lahan waxa inaga dan inuu kugu taala wadankeena hagaaga oo israaca oo meel walba aynu baabuurka ku tagno oo meel walba nixma ka socoto oo meel walba muxuu ahayd doomaheena iyo maraakiibteena iyo diyaaradaheena la soo celiyo ayaa dan noogu jirta caruurteena iskuulka inoo dhigato oo jaamacadaha inoo aado banaanada ka barato oo gudaha ka barato ayaa dan inoo kugu jirta maanta dagaal iyo isku qabsasho waad aragtaan maanta Itoobiya tan ka dhacaysa Itoobiya maanta tan ka dhacaysa waad aragtaan in qabiil la isu baabiyo waxaasna waxa uu keenay waa masaarida uu keentay waxaas bal talaxumadooda adinku bal fiiriya hadda waxa la dabka markaad banaanka ka joogtid baad aragtaa walaalayaal hadda maxaa la isugu diray Itoobiya waxa la isugu diray Masar baa isku diraysa Masarna waxay ka rabtaa calaashaan wabiga sida loo jijibiyo ayagi dantoodii baa la isku dhuftay Soomaaliya waa dantoodii waa wabigoodii waa beerahooda ku falan lahaayeen maantoodan bay ku noqon lahaayeen kuwa qaadqaatayaalaha lagu diray qaadqaatayaal baa lagu dhuftay inagu waa sida laynoo baabiyay Soomaaliya ka fiiriya waa meeshii shalay inaga layna ka soo galay inaga gobolada la isugu keen dhuftay la yiri Maxamed Siyaad Barra xoolaha dhan cuna reerkiisa cuna habraha baadiyaha jooga waxa garanaya iyadoo la yiraahdo habar baadiyaha joogta gaashaan la soo baxday arbay raacanaysa gaashaan bay ay tiri hebelaw iyo keen gaashaanta aanta gadowgeeda saaran bay tiri markaas asaasay dadka ku baabiyeen waa beentii hoogii iyo halaagii dadka laga sameeyay waa beentii hoogii iyo halaagii dadka laga sameeyay nabad baa lagu jira saan uga quruxdaan uga iyo qiimahan uga in baa lahayn wadankeenu saad uga in buu sharaf u lahaayo wuxuu ahaa muxuu ahayd wadanka maanta muxuu Afrika ugu horeeyo halkaas ay nafriisisay beentii iyo balaayadii hadda xabashida waxa lagu wadaa waa sidii inaga shalay leynoo baabiyo waad jeedaan shalay sidii leynoo baabiyo xabashida hadda lagu wadaa waa aragtaa niman danaystayaal baana dabada ka wada oo dadka iyo caruurta iyo maatada qaxiyay oo dadka baabiyay oo beerihi ka gubaya oo guriyihii ka rusheynay oo masiibada ku wada waxa way waa niman qaadqaatayaal oo carab ka soo qaatay muxuu tahay xoolo ka soo qaatay ayaa waxay rabaan say u jajabiyaan bahalkaas ay biyahaas ay xirteen say u jajabiyaan waa dantoodii xoolahooda iyo risqooda iyo dadkooda iyo muxuu beerahooda ay ku tabcan lahaayeen bal day qaadaqaata xoolo soo qaatay dadkii isku dhuftay warina kaciye inagoo reer bala layna baabiyay oo madaxnimadii baa layna ka qaaday Soomaaliya waa shalay wixii layna ku baabiyay oo 10 urur oo NFDD iyo Afrika iyo Abarkaal layna kugu sameeyay 10 urur oo najaaska wixii layna kugu sameeyay shalay weey oo maanta dadkeen ku kala qaybsan yahay aynu waqooyi iyo koonfur iyo muxuu aynu ula baxnay iyo muxuu gobolada dhexe iyo gobolada miyaynu naqaan Soomaaliya noo ahayd marka waxa weeye waxa la walaalka ushi lagu dhuftaa adna biri bay kugu taalaa walaalka ushi lagu dhuftaa inda adigana biri bay kugu taalaa waa ka maanta baan ku wabigii ay sameeysanayeen iyo nixmadoodu soo socotay oo maanta intay ka sameeyaan muxuu ay kaarabad ka sameeyaan ay Afrika oo dhan ay ku cuna qabatayn lahaayeen waa taa maanta day waa la kala jabiyay waxa loo kala jabiyay in aysan qayreelinin oo aan wadankoodu degin oo liibaan laga helin oo laga shaqaysan oo ay isku baaba'aan oo qaxaan hada markay soo qaxaan ma qayb galiyaan baydin la taa kaalay warkayga baad maqasheen oo ninkii waa naga rideena kaalay ay soo dhaweeyna la dhiimay wallahi baan ku dhaartay oo ushi ku dhacda inaysan waligood ka soo waaqsanayn caruurta iyo naagahana waa laga iibinaya iyagana ibr baa laga dhigay naagahana qadamada laga dhiganaya waana arki doontaa haddeerayba ku bilaabeenba meeshaan hadday ku bilaabeen dhibaato inay dhibaateeyaan hadday ku bilaabeen way dheen nooma soo gali karaan haye gurigoodii iyo rugtoodiina dab bay ku shideen waa aragtaan inagu marka aqligeena aynu ka barino dad muslimaan nahay dad afgaranayaan nahay waxay sameeyaan baan u jeednaa ka fiirso marka waxaan ku dhacaysa walaalka ka fiirso adiga كل مريوين تانو دم والله كواسا كورا حبشدا قالوا دابا نو دانتا صحيح قابا markay soo qaxiyay yiraahdo Soomaalida la soo dhaweeyay kuwa kala wada aragtay waxay nagu dhigeen baan diir marka Soomaaliya ka fiirsada dhibaatada ka socota Afrika maanta ka fiirsada nimankan waxa weey nin nadan inoo galmayo waxa la socda oo waxa weey jaajuusinta oo la socdo ka daabintaan ha laga hortago waxa dan oo inoo hayaan mala waa sida hadda qolada loo galayo waxdan aynoo hayaan ma lahan aynu ka hor istaagno wadankeenu dawlad noqon rabnaa inaan dadnimo yeelanaa rabnaa inaan dadka iyaga dalka wax la qaybsanaa rabnaa aynu ka hor istaagno
مرة ينيلين إن ما ركتم حويتو إنه أقولانو إن ودك إن دجال دم بكرعه وقبيل قبيل يبراي اللي سوري استاجو إن شاء الله بإذن الله هدي ولا على المانتي وحوي موضوع عن ربينا كهلا وحوي وادل كينا يدني محمد أنا كسر صعطة قفل بسيط ورباه وقاتل لكن أنا جتان كربينا كهلا ومدة ولا عليال صوت تي قربة ما أنت وأنا سيدلو قربة ما أنت وحباهن ملهن قربة ما أنت وحباهن ملهن ما أنت صوماليا ما أنت ولا أوجي هي وحوي هدي نبضنا قطو اسكت بدر عذا إن ما أنت وضع كون أحسن أي سنتيرنين مرة منه هدان هو يوي النهاي أو محيط قربة يو محيط وضع كنا ما أنت تكشر تاني أجناي مرة منه ما أنت محيط الدجال دب أسي دير هذا أسي صعدي قبيل يو ريال هب مريها سو حيتول عكرادسة labadii ururo meel isugu yimaada ninkiisa soo sharax waxa la leeyahay min $1 iyo $2,000 ma nasiinaysa mise kuugu shulmayn xataa dadkii shacabkii baa bahaloobay xataa hadda bahaloobay odagii dhaal la soo doorto dawlad gobolada xataa hadii laga dooranayo wuxuu leeyahay iigu shuba maxaad haysaa marka ilaahay dambigeena dambi waartay walaalayaal ha dhaafo insha Allah bismillah dhamaantiina waa idin salaamayaa ilaahay idin salaamayaa dhamaantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh